بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك شاه markii uu talada la wareegay waxa kacdoon sameeyay adeerkii qaawurtii dagaal xun baana dhex maray oo lagu jabiyay adeerkiisii falaagomay kadib inta la xidhay ayaa la dilay. malik shah wuxuu kamid ahaa sultaanadii ugu fiicnaa xagga dhaqanka iyo cadaaladda iyo sidoo kale dhinaca kartida iyo geesinimada. xilligiisii diinta islaamku waxay gaadhay meesha ugu ballaaran oo wax isku fidisay laga soo bilaabo Kashgar oo bariga fog ku taal oo ah meeshii diinta islaamku gaadhay xilligii dawladda Umayyadeed dhinaca galbeedna ilaa Qudus. dhulka islaamka ee Aasiya oo dhan gacanta ayuu ku dhigay marka laga reebo jasiiradda Carabta dalalka koonfur bari Aasiya ee jasiiradaha ku yaal. xilligiisii meel walba ammaan iyo nabad ayaa ka dhacday, dadkina waxa ay ka raysteen burcadii iyo tuugadii iyo argagixisadii dhibka ku haysay. dawladdii Salaajaqada ee aan soo aragnay asal ahaan meeshii ay ka timid iyo sidii ay ku aasaasantay iyo halkankii ay u soo gashay jiritaankeeda iyo inay awood yeelato markii ay taladii kala wareegtay dawladdii Shiicada reer Faris ee dawladda dhexe afduubka ku haysatay muddo qarni ka badan oo 4 khaliifo la soo shaqeeyay ayna maqarsaar u ahaayeen iyagoo kii ugu horeeyay ay la kulmeen turbadiba indhaha musbaarka ka taagay oo xilkii kala wareegay dhaqankaas oo ay ugu horeeyeen adoomadii Turkiga ahaa oo iyaguna muddo dawladda dhexe afduub ku haystay. Salaajaqadu iyagu sidii aan soo aragnayba duulashaasi hore way ka gubsanayeen oo khaliifadii Cabbaasiyada awoodii ay wax ka siiyeen, sidoo kale waxay soo nooleeyeen oo ay difaaceen diinta islaamka gaar ahaan madhabka Ahlus Sunnah. suldaanadii Salaajaqadu khaliifadii Cabbaasiyiinta waa ay la xidideen oo ay guuriyeen kana guursadeen wanaag iyo wada shaqayn baana ka dhaxaysay. saddexdii suldaan ee ugu horeeyay oo kala ahaa Duqrul Biik, Alabarsalaan iyo Malik Shah baana dawladda awoodeeda fidiyay oo dhul ballaaran hoos keenay. markii uu suldaankii saddexaad Sultaan Malik Shah oo isagu dawladda gaarsiiyay meeshii ugu fogeyd uu geeriyooday sanadkii 485 ee hijriyada ayaa waxa dawladdii Salaajaqada ku bilowday kala qaybsan iyadoo amiiradii Salaajaqadu ay talada isku qabsadeen kuna mashquuleen loolan gudooda ah kaasi oo horseeday inay dalalkii kala qabsadaan oo nin walba intii awoodiisu ay gaadho uu ka taliyo. taladii dawladda dhexe ee Baghdad bayna muddo loolan u galeen oo labadii wiil ee Malik Shah oo la kala odhan jiray Barkiyaariq oo curadka ahaa iyo Maxamed oo ka yara iyaga oo laba bohod kala ahaa ayaa midba mar la wareegayay. 2 sano kadib sanadkii 487 waxa ku adkaaday taladii Baghdad oo dawladda dhexe xarun u ahayd san tilmaanay. Barkiyaariq oo khaliifadii Cabbaasiyiintu u ansixiyay inuu noqdo suldaanka ka taliya dhulka dawladda dhexe awoodeedu gaadho. dawladdii Salaajaqada waxa ka dhashay dawlado kala ahaa Salaajaqadii Ciraaq, tii Shaam, tii Aasiyada yar ama Anatolia, tii Karmaan iyo tii Khuraasaan oo ilaa bariga muslimiinta ka talinaysay. dawladoodan waxay iyadoo kala qaybsan sii jiitamisay muddo qarni kale iyadoo mar walba qayb ka mid ahay awoodda sare lahayd. Aasiyada yar ama dhulka Anatolia oo ka mid ah dhulka Turkigu maanta ka taliyo waxa ka dhashay dawlad ka mid ah Salaajaqada oo Qadlash bin Israa'iil bin Arsalan uu ka aasaasay kana madax banaanaaday dawladdii dhexe ee Ciraaq sanadkii 470 ee hijriyada. sanadkii 487 waxa Shaam maamul madax bannaan ka aasaasay Taatash bin Alabarsalaan. Maqiisudiin Maxamuudna wuxuu u haray taladii Ciraaq sanadkii 511. dawladdii Salaajaqada qaybta ugu weyn waxa u haray oo gacanta ku hayay Sultaan Sanjar oo ka talinayay gobolka Khuraasaan ilaa bariga fog ee muslimiinta isaga oo markii dambe ku guuleystay inuu soo celiyo midnimadii iyo awooddii dawladdii Salaajaqada oo dhammaan dhulkii ay gaadhay gacanta ku soo dhigay intii u dhaxaysay 511 ilaa 552. laakiin markii uu isagu dhintay Ilaahay u naxariistay ayay dawladdii mar kale kala qaybsantay oo ay sideedii ku soo noqotay oo la kala qaybsaday dalalkii iyo awoodihii markaasay awoodeedii hoos u dhacday. dawladda dhexena mar walba waxay marti u ahayd hadba midkii ku guuleystaa oo khaliifadu hadba ninkii Ciraaq u adkaada ayuu awoodda u ansixinayay oo aqoonsanayay sidaas bayna ku wada shaqaynayeen.